السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كسر هذا Somali Healthy Lifestyle channel كذا على وكلا حدان وحي عافمات كخصية. فضلا هدية أي تهاي مركي جوري سيدي أركتو لايك صار سبسكرايب نا channel كده. هدية هراء بحدة إيدي كثير ما شاء الله يعني أدنو فرح سنة هاي إن أحد بحدة متابعة يسوق فيديو ده سوق اليو channel كمان. channel كان سيدي نوجنا هاي وحين وكلا برانا معلومات كوسابسن عافماتك يو مواضيع كلا أو بدنا على احتال وصوقش. marna ma isweydiisay sababta uu COVID-19 ku ama coronavirus ku dadka garanayay yani urtay waxa uga saaro marka ugu horeysa ama maxay loo garto qofku hadii urtu ka lunto in COVID-19 uu hayo sidoo kale dhadhankuna uu uga tago marka sababta samxidii aan maanta jeclaystay inaan ogaano yani sababta ka dambaysa ama mesela halkay ku hayso maxay dabada ku hayso arinta inuu maxay urtu ka lunto ama dhadhanku ka lumo sidaan ognahay ama anatomy ahaan ognahay jirka bini'aadamku soo samaysan yahay maskaxda ayaa meel kasta xukunta maskaxdu waxa ay leedahay goobo ay ka xukunto meel kasta ama xubin kasta oo jirka kamid ah tusaale ahaan sidaynu maxay video hore ku sheegnay indhaha kale meel bay ka xukuntaa maqaarka kale waxay ka xukuntaa meel fara badan oo maxay maqaarka hoostiisa ku jira oo neerfayaal yar ugu yaalaan ama xididdo yar ugu yaalaan sanbabadoo kale waxay ka xukuntaa meelo maxay u khaas oo maxay ogaada hadii oxygen badan ay ku jirto maxay sanbabka amaba ay carbon badan ku jiro oo kala shaanleynaysa marka maxay qofka hadii maxay oxygen badan ama misalan yani carbon badan jirkiisa maxay ku jiro halka maxay keenaysa inuu qofku hiin raago amaba naqasba qaadan kari waayo waa halka sanbabka ku taala ee mirdhow maskaxda u diraysa arinta maxay in wax iska bedeleen hawada meesha ka jirta taasoo kaliya ma yani organ kasta caloosha u fiirso inaan gaajoonano maskaxda ayaa soo diraysa maxay ka ogaanaysa meesha gudaheeda waxa ka jira haddii si kala maxay aanu baqanayno maxay neerfayaasheenu kacaan haddaan faraxsannahay haddii aan caroonayno haddii aan murugeysanahay ilmada qofka ka imanaysa marka maskaxdana maxay meel kasta xukumaysa taas maarta ka qofku hadduu bilaa maskax yahay waxa laga yaabaa inaan noloshiisu maxay tamarinay taas waa taas haddaba coronavirus sidee buu qofka uga tuuri karaa maxay urta ama dhadhanka halka u dhimata halkaas waayahay sida soo sheegnay maxay receptorska jira ama maxay meelaha signalada ay soo marinayaan neerfayaasha sanka yimaada ama neerfka loo yaqaano olfactory sanka yimaada halka uu signalka soo mariyo ama receptorku ah oo sanka maxay gudihiisa ku taala ayuu viruskani hadaba asiibaya waxyaabo badan uu asiibaya laakiin meelaha uu markaa naafaynayo ee uu shaqadeeda joojinayo waxa kamid ah meelaha signalka uu ka qaato nerve-ka maxay urta qaada ee geeya maskaxda amaba nerve-ka qaada dhadhanka ee geeya maskaxda waayahay hadaba marka uu magaranaysa signaladaasi uu khalkhaliyo meeshii receptorskii signalka qaadanaya ay qaadan kari waayaan ama dheecaanadii uu ku shaqeynayay uu wax ka bedelo waxa dhacaysa qofkii in uu urtii waayo ama uu dhadhankii waayo dhakhaatiirtu waxa ay hadaba ay kula tacaamulaan arrintaas oo kale amaba ay magaranaysaa yani ku daweeyaan in ay viruskaasi halkii uu khalday hagaajiyaan dawooyinka ay siiyaan waxa ka mid ah dawada loo yaqaano betamethasone dexamethasone corticosteroidska ayay maxay ka mid yihiin waxa ay hoos u dhigaysaa in meesha dhibaatadii ka jirtay ee ahayd in uu viruskani fuulay halkii signalskaasi ka bixi jireen inuu ka fujiyo taasi waxay markaa soo celinaysaa inuu qofkii mar labaad urtii ay u soo noqoto si fiican wax u uriyo amaba dhadhanka u soo noqdo oo si fiican wax u dhadhamiyo marka qofkii oo weli viruskii hayo haddii uu dawooyinka qaato dhadhanka iyo urtuba uu soo noqonaya inta badan percentage-ka ugu badan 90% sida misalan yani misalan xanuuno kale oo urtaaya dhadhanka irgi kara lagu daweeyo dhadhankaas uu soo noqonayaa laakiin qofkii viruskii ku jiraayo ma aha qof negative hadii maanta kala la baaro marka arrinka maxay aan maanta ogaanay waa maxay in viruskani uu la dagaalamayo signalada maxay garanaysaa sanka oo ay ku qaataan urta ama ay dhadhanka ku qaataan carabka channelka like saar subscribe saar videoguna maanta intaas ku soo gabagabeynina assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh